بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتا والسلام يا قف كست فيديو كان داوانيا. maanta waxaan jeclahay in idin soo gudbiyo application aad u qiimo badan oo magaciisa la yiraahdo AI filter ama AI filter. barnaamijka wuxuu ku saabsan yahay shucaaca wuxuu ka yareyn doonaa mobilkaaga lightka. sida aan ognahay mobilka waxaa kasoo baxa shucaac tiro badan oo indhaha qofka bini'aadanka aan u fiicnayn. marka qaar laga yaabo inuu indho xanuun kugu sababo ama hurdo la'aan kugu sababo, sida scientifically la xaqiijiyey. barnaamijkan oo ka caawin doona inuu kaa geliyo hadh sida muraayadaha qofka marka indhuhu xanuunaan oo kale, ama in badan computer iyo mobile iyo wixii lamid ah u isticmaalo dhakhtaradu qoraan hadh ka samaysa. waa muraayadaas oo kale ah ayuu noqonayaa barnaamijkan ka dhiganyay. markaan barnaamijka si fiican u guda galnay ayaad arki doontaan insha allah. barnaamijka waxaad ka heli karaysaa Google Play Store. hadaad furto Google Play-gaaga, markaasaa Google Play-gaaga u furto, uusaa kugu soo kaco Google Play-gaaga, waxaad ku qoraysaa xagga sare AI filter. deetana search wala markaasaa search garayso waxaana program oo AI filter midhan. laakiin kaa saraa u fiican oo si fiican xitaa setting fiican leh. kaa u sareeya markaa daawanaysaa AI filter blue light ku dhufo isaga, deetana soo install garee. aniga imika already ugu jira mobilkayga aan kusoo dejiyey programkan. markaad xagga install buu kusoo qori doonaa, xagga imika open taanii taagan. markaa soo install garayso xaggan hoose barnaamijkan siduu xaggan ku tilmaamayo 100,000 oo qof ayaa dejistay buu ku leeyahay. barnaamijkan si uu faa'iido badan yahay ayuu ka hadlaya, ayuu kuu sheegayaa. dad badan baa bartana feedback ka soo bixiyey barnaamijkan siduu u yahay useful-ka. sharaxa galna hadee barnaamijka oo soo kicinaysa markuu barnaamijka kusoo dhamaado, kusoo download garaysmo, soo kicinaysaa saan buu kusoo saari doonaa. bal imika horta aan eego shaashadaydu leerhkeedu intuu marayaa. hadda aniga waan iska naaqusay AI filterkuna ii furan yahay, iska xidho. sidaad aragtaan shaashadaydu hadda waa bright, aad bay u cadday oo runtii indhuhu iskama xijin karayaanba. xitaa haddaan naaquso weli aad bay u cadday oo leydh badan baa ku jira. marka leydhkaasaan gaabin doonaa. barnaamijka aan ku noqono, barnaamijka AI filter baan ku noqon doonaa. barnaamijka markuu saas kale kugu soo baxo, xagga yare sare ayaad enable siin doontaa. xagga yare farta ay ku taalo enable baad oran doontaa. sidaad hadda wada aragtaan wuxuu saaray color cad madow buu saaray hadda. marka xaggana waad ka naaqusaysaa, xagga yare ku taalo fallaadha yare dhaqdhaqaaqaysa. sidaad wada aragtaan fartayda ku wadado, markasta dhinaca midigta usii wado wuu sii madoobaanaya. hadda sidaad wada aragtaan waa madowba. xagga waad ka naaqusanaysaa. waxa kale uu leeyahay xagga iyadana ay filter type ku qorantay. waa kalarka aad u sada rabto, madowga noocaad ka rabto, nooca doontaa markaa saaran karaysaa. green, yellow, red, black iyo optimum oo isagaa ku cabiri doona xaaladda ugu fiican. marka ani waxay taagantahay black. qof kasta markaa wuxuu doonaa ayuu ka dhigan doonaa. xaggan kale wuxuu ku sii animation effects ayuu ku sii sheegi doonaa. icon type-ka ayaa xagganana oo barnaamijka programka calaamadda noocyo ayaad ka dhiganaysaa buu ku leeyahay, oo waxaad doontaa ayaad ka dhiganaysaa. bartan hoose qayb kale ayaa jirta isna xagga meesha. markii hore waxaan joognay xagga telefoonka ku qoran yahay, markan dambena xaggan lightka ayaynu tegi doonaa. xagga yare quick off ay ku taalo, haddaad sii daysato way fiicantay inay sii daysato. waxaa kusoo bixi doontaa qaybta yare imkaan wadwada lightka
oo iyaduna kuu sahlaysa inaad markaad ama filin oo kale aad daawanayso inaad markiiba jag inta saa u siiso caddaanku kuu soo baxo sad filin ama video aad u daawato si fiicana markaad doontana aad inta saa dhibic one click inta siiso ay haydhkii caddaa iyo midoobaa isku kaa saarto. xaggan kale saacada ku xiranta iska dhaafo. xaggaa u dambeysana waa xaggaa sare notification barka, xaggaas ayuu ku soo saari doonaa programka si aad uga maamusho oo maxay ahayday aad haddaad doonto iskaga xiri karto adoon applicationkii baadhbaadhin. markaa waxaan wada rajeynaya wada fahanteen. applicationkaas waa application aad u qiimo badan ood indhahaaga ku badbaadin karayso. ilaahay waa wax badbaadiyey laakiin intii tamartaada aad indhahaaga ku badbaadin karayso. indhahana wuu fiican yahay sida scientifically la xaqiijiyo, dhakhaatiirtu xaqiijiyeenna in aaladahan la isticmaalay social mediaha sida Facebook, Twitter, muxuu ahaaye WhatsApp, imo aad bay u tiro badan yihiin. caddaanka tirada badan leh ama haddaad computer isticmaalayso ama aad mobile isticmaalayso smartphone caddaanka tirada badan leh ama leyrhka shucaaca inta tirada badan leh kasoo baxaya uu indhahaaga u geysan doono damage. markaa insha allah wuu ka caawin doonaa. ha ilaawin inaad videogana share garayso. waa anigoo ah Farxaan Xasan Dalbac oo idila bye bye. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.